WhatsApp-kaaga ma ogtahay in aad qarin kartid dhammaan wada sheekaysiga dadka kugu jiro oo ilaa sanado ilaa 2 sano kula soo hadlayay ilaa kor ilaa hoos tixan. Lacal haddii qof telefonkaaga uu ka qaado oo gudaha u gal WhatsApp wuxuu arki doonaa meel cidlo ah, wuxuu u ekaan doonaa wax la tirtiray ama mid cusub uu hadda la sameeyay. Haddii qofkaas uu telefonkaaga ku soo celiyana waad furan kartaa ama dib ayaa u soo ceshan kartaa dadkaas ayagoo waxbana wada sheekaysigooda aadan tirtirin. haddii aad xiisaynaysid ama aadan ogeyn muuqaalkan wuxuu noqon doonaa muuqaalkaaga haddii aad awoodid ama aad ka faa'iidaysatay ama aad xiisaysay muuqaalkan. Let's go marka. WhatsApp-ka shaashada ii saaran ayaan soo kicinayaa. kadib soo jeedin wada sheekaysi badan ayaa meeshan ii saaran. haddii kor aan u jeedo ama kor aan u qaado waxaad arkaysaan dhammaan waxyaabo fara badan oo messages oo meeshan la soo qoray. kadib saddexdaas dhibcood ee kor ayaan ku dhufanaa oo search-ga agtiisa kadibna setting ayaan ku dhufanayaa. markii meeshan aad joogo waxaan ka dooranaa meeshan ku qoran tahay accounts kama ahan meesha ka hooseysa ku qoran tahay chatska. kadib waxyaabo fara badan ayaa soo baxaa. qaybta ugu hooseysa waxaa ku qoran chat backup iyo chat history. chat history ayaan ku dhufanayaa. qaybta koowaad waa export chat. waxaan ku dhufanayaa archive all chats. kaas markii ku dhufta kadib wuxuu ii leeyahay ma hubtaa inaad dhammaantooda aad qarinaysid ama aad archive ka dhigaysid. okay ayaan leeyahay. haddii aan back dhaho mar labaad back aan dhaho mar saddexaad back aan dhaho waxaad arkaysaa wixii oo chat meeshan ku qoran waa ay maqan yihiin. haddii aan status ku dhufto statuska wixii ku jiray way ku jiraan ama dadkii soo dhigay waa la arkayaa. callskana waa la arkayaa wixii soo wacay iyo waxaan wacay. callska waa iska delete garaynaysaa wixii kusoo wacay iyo wixii adi aa wacdayba waa iska delete garaynaysaa. statuskana qof isku qabsanaysaa maba lahanba meeshaana waa kugu qarsan tahay. waxaan filayaa dad fara badan inay ka faa'iidaysan doonaan. sidee loo soo celiyaa waay meesha ayaan ku laabanayaa saddexda dhibcood kadib setting ayaan ku dhufanayaa kadibna chat ayaan ku dhufanayaa chat history ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay unarchive all chats kadibna okay ayaan leeyahay. haddii 4 mar dib aan u laabto waxaan arkayaa dhammaan wada sheekaysiga waa ay soo laabteen anigoo diyaargarayn. waxaan filayaa inaad fahantay oo aad ka faa'iidaysan doontid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.